lacag baan waardiye ka hayay muddo 2 bari ah anigoo mar walba laptop ku dul imaanaya fiirinaya lacagta meeshay aaday balse suuq kulma tashanaya marba waxa dhacay inuu booday lacagta booday oo momentum kan dhulus waxa la ma jireen inta suuq micnaha volume ku soo buuxsamay booday suuq ma sameynaysaa adigu waxa sameynaa aniga sameeyo marka waayo tradeda noocan la qaato meel u badan yihiin qasaara yaa laga soo galaa waa waxaan mar walba ugu dhici jiray sidii hadda qaarkiin aad ogtihiin aniga waaga hor micnaha zone iyo trend line markii aan isticmaali jiray dhibkaas waa qabay hadda laakiin evolve sameeyay aniga waxaan isticmaalay waa indicators lacagta haday meel sheegto waa la galaa haddii meel sheeg weeyna waa ka joog indicator kan soo sheegaa new indicators lacagta markay diyaar tahay wuxuu leeyahay gal haday diyaar ahayn ka joog okay marka maxaa dhacay markaan lacagta ka dawarday way kan dhala arkaysaa buuxo oo body ku buuxsamayo weekna aan lahayn inay boodaan ka daba boodaan waa lagu soo noqday taasna mid mar walba dhacdo ma aha micnaha qof kaliya ahaanayso mar walba kugu dhacaysaa marka waxa marka iga talay mar walba aad aragtid lacag booday oo sugayso meesha aan micnaha sida dadka qaar hadda isticmaalayaan FVG inay soo buuxin ama micnaha inay support ka imaanin ka daba booday muhiim ma aha micnaha inaad isku tagan kala isticmaalna muhiim ma inaad adig micnaha ICT iyo CRT iyo MMT ay isticmaashid anna new indicator isticmaalo mar walba kala duwan muhiim ah waxa muhiim waxa weeye maskaxiyan isku si meel ka duuleynaa hadhoon xagaan isku soo geeshoonayna lacag ma sameeyna isku geeshoonayna marka haddii lacagta ay boodo oo micnaha intaas oo jeer micnaha kan dhalaso 2 3 kan dhalaso intay boodo is buuxiso ka wayo rules ku xukumayay way ka baxday marka suuq markan ku yirto in rules aad leedahay sida hore uga hadalno wax ku xukum suuq ka celiyo galiyo ka bixi na suuq marka galayso waa rules ku gashaa saddexdii dhameystirmaan haday laba yom in la wada dhameystirmaan haday afar shay in isla buuxsamaan in isla buuxsana afar shay ma micna inaad leedahay wax ku dhaafay bood taas kool fomo micna in wax ku dhaafana moodaysa ka daba boodaysa traders meel u badan yihiin qasaari ku dhamaadaan faa'iido laga madhow walow haddii hata hal mar ay garab ku siiyaan oo faa'iido ka cuntid uma leena mustaqbal ahaan inay mar walba micnaha taas ahaanayso waayo emotional trade ahaanaysa mar walba markaas lacagta booda ka daba boodaysa inaha system ka dhisatay iyo wixii ku shaqeynaa istiraatiijigaada qaabkaadi sharciga dhisatay uu ka baxay lacag meel ku sugaysa meesha ka bood sida example ugu horeeyay ku siiyay lacagta aan sugaabnaan ka daba booday waa lagu soo noqday taasna mid mar walba dhacayso ee suuqa cirka isku mashaariicda mar walba macnaha waa move waa wave iyo macnaha iyo correction marka wave kan duu ku dhaafay ama momentum suuq macnaha uu furmay session furmo ku dhaafay ka daba booday